Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan idin hayaa sheeko kale. Sheekadan waxaa la dhahaa Sleeping Beauty. Beri waxaa jiri jiray boqor iyo boqoradiisa oo ku noolaa boqortooyo meel fog ku taala. Boqortooyadaas waxay ahayd boqortooyo aad u ladan, dadka ay wada fiican yihiin oo yacni ay lacag haystaan oo dadka dhan dadka badankooda ay yihiin dad taajiriina. Boqorkii boqorada yacni wax kastoo naftooda damacdo way haysteen. Lacag, dahab, guryo, dhul, wax kasta oo yacni ay naftoodu ay haweysato dhan way haysteen. Marka halka wax aysan haysanin laakiin waxay ahayd ilmo ma aysan dhalin. In muddo ay isqabeen, xoogaa isku weynaadeen, intaasoo sano isqabaan ilmo ma aysan dhalin. Weligoodna ilmay raadin jireen. Bas dadka magaalada degan yacni boqortooyada dadka degan dhan way ogaayeen inaysan boqorada ilmo lahayn oo ilmana ay raadinayaan. Anyways, mar laga soo wareegay muddo badan ay boqoradii waxaa la ogaanay inay uur leedahay. Dadkii meesha boqortooyada jooga dhan aad u farxayaan, boqorada aad u farxayaan. Markii laga soo wareegay 9 bilood oo uurkaas uu dhamaaday waxay dhalaysaa gabar caafimaad qabta. Marka gabadhii markay dhasho boqorada aad u farxayaan. Dadkii magaalada boqortooyada deganaan aad ula farxayaan oo yacni intaasoo sana la sugaa inay ilmo dhalaan. Finally ilaahay ilmo siiyey. Bas markii cunugtaas dhalato bil markii laga soo wareegay waxay boqortooyada waxay sameynayaan xaflad weyn ay ku cazumeen dadka boqortooyada degan inay imaadaan, ay gabadhaan la arkaan, ay la farxaan, ay yacni maxay ahayd dadka intaasoo sana sugaayeen inay boqorada ay cunug dhalaan. Bas finally markii maalinkii xafladda imaatay dadka dhan waa isku wada imaadeen. Waxaa la dhahayaa marka dadka xafladda markay imaadeen qof walba wuxuu keenayaa gift ama hadiyad yar oo cunugta u keenaya. Dadka dhan markay isku wada imaadaan oo xafladdii la imaado oo dadka dhan ay faraxsan yihiin oo cunugtii hadiyadda loo keenay oo qof walba yacni boqorkii boqorada uu leeyahay yacni uu la faraxsan yahay yacni cunugtaas dhalashadeeda. Sida xafladda loo jooga waxaa la arkayaa oo dadka isaga faraxsan yihiin waxaa la maqlayaa qof si xun u qoslayo qaylinaya. Qofkii la fiirina dhinaca yacni qaylada ka imaatay dadka dhan wada fiirinaya. Markaas waxaa la arkayaa naag xun oo qumayo oo la yaqaanay oo maajiga ama maxaa la sixirka xun taqaanay oo weligeedba magaalada laga ciirin jiray iyadoo cunug yar kor taagan. dadkan isku naxayaan waa la wada fiirinaya qof dhaqaaqi ma laha. Markaas waxay leedahay naagtii maajiga ama sixirka xun taqaanay waxay ku dhahaysaa dadkii anigana cunugtaan yartaa maanta waxaan u wadaa hadiyad iyo hadal hal imaqlo. Dadka dhow istaagayaan waa la dhegeysanaa. Marka waxay leedahay anigu waxaan u hadiyeynayaa boqorkii boqorada oon u sheegayaa gabadhooda inaan maajig ama sixir aan saaray. Maajigaas ama sixirkaas maalin maalmaha ka mid gabadhaan xoogaa yar markay soo korto maalin maalmaha ka mid qodax afarteeda mudi doonto. Qodaxdaas dhiiga ka keeni doonta afarteeda. Mar alaale markuu dhiigaas ka imaado gabadhaan way dhiman doontaa. Markaasna qoslaysa si qaab darantay u qosasho oo naxdin badan isla markii meesha ka cararaysa. Boqorka isla markii wuxuu ka daba dirayaa kuwa askartiisa ah ee naagta soo qabtaan. Isla markiina wuxuu leeyahay la ii keeno naaga yaqaana maajiga fiican oo lagu jibiyo ama lagu cancel gareyn karo maajigan xun ee naagtan ee cunugteeda saartay. Isla markii waa la baxayaa. Naagihii loo soo yeerayaa. Markii naagii loo soo yeero waxay damcayaan inay jibiyaan sixirka ama maajiga xumaa ee naagta hore saartay. Way sameyn waynayaan. Mid ka mid ah marka waxay leedahay boqorow anigu ma jibin karo naagtaas sixirkeeda laakiin waan bedeli karaa oo waxaan ku bedelayaa gabadhaan maalin maalmaha ka mid ah maray tahayba farteeda qodax waa mudi doontaa. Qodaxaas markay muddo dhiiga ka keenaysa dhiigaas markay ka keento ma dhimanayso laakiin waxaa ku dhacaya markay qodaxaas muddo isla markiiba waxay seexanaysaa hurdo aysan weligeed kasoo kici karin. Hurdadaas waxaa ka kicin kara keliya hadduu nin ayada lilaahi iyo si run ah oo lilaahi u jecel hadduu dhawankeeda dhunkado ee hurdada kasoo kacaysaa. Haddii kaleeto weligeed saas u hurdaysaa. Boqorkii markii uu ogaaday inay sheekada saas tahay wuxuu dhahayaa okay dadkii u shaqeynayay iyo kuwii waardiyaashiisa ahay dadkii meesha deganaa kulligood wuxuu leeyahay waxaan ka codsanayaa inaad maxaa la dhahaa wadankan degannahay ee boqortooyadan dhan laga suuliyo wixii qodax ahaa. Geedihii lagu yaqaan inay qodxaha yani geedaha qodaxaha dhalan in laga suuliyo oo la wada gooyo
oo meeshaan uusan ku oolin maxaa la dhahaa geedkaasi gabadhaan aysan qodaxdaas u mudin dadka dhan way yeelaya isla markii hawsha lagu dhaqaaqaya bas gabadhii marka boqorka iyo boqoradii waxay ku tashanayaan inaysan gabadhooda aysan ku korin sida caadiga ah dadka ilmaha loo koriyo kale oo lagu koriyo si aad u taxadar badan marka waxay sameynayaan gurigaas kaliya ku noolaanaysaa weligeed banaanka looma saarayo wax kastay u baahan tahay guriga loogu keenaya guriga degan oo guri weyn oo maasha allah ah marka dadka ilmaha iskoolka iyo saaxiibada iyo waxaas dhan guriga loogu keenaya gabadhii gurigaas ku barbaaraysaa weligeed banaanka iyadoo u bixin maalmaha kamid iyadoo gurigaas ka dhex maraysa waxay arkaysaa albaab aysan weligeed arkin albaabkay furaysaa markay furto waxay arkaysaa jaranjaro albaabka dambeysa way farxaysaa jaranjaradii fuulaysaa markay jaranjarada fuusho waxay arkaysaa marka jaranjarada waxay ku dhamaanaysaa meel maqaasiin yar oo qol ah ay alaab aysan weligeed arkin ay taalo alaabo oo dharka lagu tolan jiray iyo harqaan iyo wax u eg ay arkaysaa markaas iyadoo faraxsan ay fiirinaysa marka meesha waxay ahayd meel aan muddo la gelin oo maqaasiin ahaan loo isticmaalayo alaabta ku jirta ay busi balaayo ka buuxday marka bustii marka waxay damcaysaa inay gacantaa uga tirtirto ayadoon ogeyn oo iska fiirin wixii meesha saarnaa marka meesha waxaa ku yaalay qodax yar oo dadka waagii hore ay ku tolan jireen dharka marka qodaxdiyaa gacanta farteeda mudaysa abeeladii muddo dhiig yaraa ka imaanaya isla markiiba dhulka ku dhacaysaa seexanaysaa bas gabadhii dadkii gurigeeda jooga hooyadeed iyo aabaheed iyo dadkii guriga ka mas-uulka ahaa iyo ka shaqeynaya gabadhii way tabayaan waxay leen warka xaggee aad gabadhi raadisaa loo gelaya si kasta meel kastay ka raadinayaan way weynayaan finally waxay arkaan albaabka yariiska oo jaranjaradii ay maxaa la dhahaa raadkeeda loo jeeda meesha dhan busaa ka buuxda waaye dhan lama furin raadkay raacayan waxay arkaan gabadhii meesha hurda bas markay arkaan iyadoo meesha hurda laga soo qaada qolkeeda la geenaa sariirteeda la saaraya kuwii waxaa loo yeeraya marka naagihii maajiga fiican yaqiina boqorka wuxuu leeyahay intaasna hadda laga soo wareegay waagii aad gabadhan maajigan saarteen bal hadda wax kale ma sameyn kartiin ma kicin kartiin hadda waxay leeyihin maya saan waaye gabadhan halka wuxuu u shaqeynaya waxa uga soo kici karto hurdadaan nin ayada jecel oo lilaahi u jecel oo qalbiga lilaahi uga jecel kaliya markuu imaado oo dhabankeeda dhunkado ay kasoo kacaysa oo maajigaas u jabaya okay boqorkii boqoradda waxay leeyihiin markana maqla annaga gabadha anakoo dad waaweyn anakoo ahaan dhalle hadeertaana waa sii weynaanay la-aanteed dama noolaanayno saana gabadha sariirta iyadoo noogu saaran ma fiirsan karno marka maxaa sameyn kartiin oo nagu caawin kartiin waa laisla hadlaya naagi wixii leeyahay marka finally okay halka waxaan ku caawin karna waxaa waaye waxaan idiin sameyn karnaa si gabadha u hurudoo kale idinkana idiin seexin karnaa ilaa la helo qofkii gabadhan dhabankeeda dhunkanaya oo lilaahda u jeclaa marka waxay leeyihin okay saas yeela naagii marka waxay sameynayaan magic ama spell iyo maxaa la dhahaa sixir kale guriga ku wareejinayaan dadkii joogay dhan dad iyo dugaag buuxi jooga isla markiiba way seexanayaan sida gabadh u hurdo kale loo seexinaya albaabada ka ay xirayaan daaqadaha dhanaa la xiraya marka gurigii saasaa faraha looga qaadaya bas waaye kadib adiga 100 sano maray kasoo wareegtay oo gurigii saa isaga xiran yahay oo dadkiina wali saa u wada hurdaan xayawaankii meesha jooga dhan saas u wada hurdaan maxay ahayd 100 sano marka laga soo wareego oo geeda saaqeen guriga dhan saa ugu soo wareegsan yahay maalmaha kamid ah wiil boqortooyo kale ka yimid oo far saaran oo meesha iska maraya wuxuu arkaya gurigan oo guryaha boqorada loogu talagalay inay degaan yacni castle gurigiina uu maxaa la dhahaa geedahan ay saa u saaqsan yihiin markaasuu yaabaya faraskiisu kasoo degayaa seef yaruu haystuu lasoo baxaya seeftii marka wuxuu ku goynayaa geedkii guriga saaqsanaa si u goyna albaabkiisu tagaa albaabka markuu tago albaabka furaya soo galaya markaas wuxuu arkaya ummadii dhan oo wada hurda kuwii wax waardiyeynaya kuwii wax karinaya kuwii xayawaanka hayo xanaaneynaya boqorkii boqoradii laftirkooda ayagoo kursigoodii fadhiya war ummadii dhan dad iyo dugaaga meesha guriga wixii jooga dhan wada hurda yaabay ashqaraar isagoo yaaban oo hore usoo gudbaya qolbasuu u galaya oo finally wuxuu galaya qolkii gabadha markuu galo wuxuu arkayaa gabadhii sariirta saa hurda isla markii markuu gabadha indhaha saas saaro uu la dhacaya quruxdeeda markaasuu leeyahay uu damcaya inuu kiciyo uu la hadlayaa si u kiciyo maba kacaysaba meeshay quurinaysaa wuu dhawaanaya wuu la hadlaya way kici weynaysaa saas u taabanaya inuu kiciyo camal way kici weynaysaa bas markuu qolka uu kasoo bixi lahaa intuu sii jeesto
ودوان كامر أنت سأقول لهم كذا وروا إنه ودم عينه عرّه مر الله لمرك دوان سأقول لهم كذا قبل السوق عيسى أيضا اسكو هاي ستيني هل ساعة كلي يعني وحي إني هرد عمل بقول كاس إنه هرد مؤمنين كاس وحي لا هذا هرد في عنا بقلمت الساحة ذي markay saa u hadasho oo afkaad halka uga soo baxo aad dadkii guriga joogay castle-ka guriga boqorka dadkii joogay oo dhan ay soo wada kacayaan xayawaanka dhan ay soo kacayaan kuwii wax waardiyeynayna isla markii soo kacayaan waxay iska qof walba adigu wuxuu sameynayay markii hurdada la saaray hore ka bilaabaya asoo isku haysto inuu waqtiba dhaafin bas boqorkii boqoradii markay soo kacaan waxay fahmayaan gabadhoodii in maajigii la jibiyey way soo cararayaan markaas waxay arkayaan wiilkan iyo ayada isla jooga markaasay fahmayaan inuu qofkan yahay qofkii ay sugayeen wiilkanna uu wiil qalbi fiican yahay oo gabadhaas uu lilaahi u jecel yahay oo markuu dhabankeeda ka dhunkada ee soo kacday oo maajigii isbeelkii iyo sixirkii xumaana u jabay way farxayaan markaas waxay leeyihiin waa isu kindareena wiilku farxaya wuxuu leeyahay okay haligu daro gabadha maxaa u diidaya bas aroosaa loo sameynayaa marka gabadha waa loo aroosinaya dadka ay wada farxsan oo umada dhan la sugu yeelaya mar labaad wiilkii markuu gabadha arooso uu wadanayo wuxuu la aadayaa boqortooyada kale ka yimid ayagoo wada farxsan meeshooda degayaan waxay ku noolaanayaan farxad noloshooda intii waqtigaas ka dambeysay sheekada meeshaas ku dhamaatay I hope inaad maxaa la dhahaa sheekadan aad jeclaateen sheekooyin kale waa idin soo maxaa la dhahaa waa idin soo gelin doonaa meesha insha allahu tacaala commentska sheekooyin kale aad rabtiin hadday jiraan oo ani aanan haddeertaan weli soo gelinin waa iisoo sheegi kartiin comments kusoo qora subscribe-kana meesha maxaa la dhahaa ii subscribe galay insha allah I hope inaad sheekooyinkan aad jeclaataan saas nagala soo xiriira meesha insha allah asalaamu calaykum